Salaamullah saaxiibayaal waa idin salaamay dhamaantiin kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub isku soo noqod wanaagsan haddii ay tahay markaad kugu hoosay channelkan kusoo dhawow fadlan subscribe saaro gambalelkana furo si muuqaalada halkan aan soo dhigo ay mar walba kusoo gaaraan muuqaalkana like saar si dad badan uu u gaaro waa mahadsantahay halkan waxaan kugu tusayaa maanta qaabka muuqaalkaaga aad ugu sameyn kartid border haddii aadan garanaynin wax border laga wado waa wax sidaan u eg oo ah box aad u sameynaysid muuqaalkaaga si uu u qurux badnaado waa arday dad badan oo caana oo qaar YouTube muuqaaladooda u sameynaya border ama haddii aad rabtid inaad adiga laftirkaaga u samaysatid muuqaalkaaga border qaabkan ayaad ugu samaysan kartaa muuqaalkana ayaad ka helaysaa haddii aad Premiere Pro Adobe Premiere Pro aad isticmaalaysidna waxaan filayaa inaad isla socon doono marka ugu horeysa waxaad furaysaa new project ayaad leedahay kadib projectkaaga magac ayaad u yeelaysaa waxaa leedahay video border marka aad projectkaaga aad magac u samaysatid kadib halkan ayuu ku keenayaa haddii aadan garanayn waxyaabaha ku muuqda meeshan waxa ay yihiin iyo qaabka muuqaalkaada u dhigreyn kartid oo basic ah waxaan ka sameeyay muuqaal hore qaybtan kore ayuu saaran yahay waxaan jeclaan inaad soo daawatid halkan marka aad imaadid muuqaalkii aad dhigreyn lahayd ayaad soo qaadaysaa ama muuqaalkanba noo soo qaad kanba soo qaad soo jiid kadibna halkan keen halkan markii aad soo gelisid muuqaalkaaga hadana soo jiid mar kale qaybtan keen halkan ayuu kaaga muuqdaa muuqaalkaaga aad u sameyn rabtid borderka waa kana marka halkan aad joogtid clipkaagu halkan yahay codkaaga waa kana muuqaalkaagina waa kana waxaad tagaysaa qaybtan ayaad tagaysaa falaartan yarta ayaad tagaysaa kadibna waxaad ku dhufanaysaa effects meesha ku qoran tahay halkan qaybta searchka waxaad ku qoraysaa grid ayaa ku qoraysaa gridkan ayaa soo jiidaysaa kadibna clipkaaga ayaa dul dhigaysaa waa ku sii deynaysaa markuu halkan ay ku joogto qaybtan effects controlka ay imaanaysaa effects controlka marka imaad gridka ayaad raadinaysaa aad soo gelisay meesha gridki waa kana gridki halkan ayuu ku saaran yahay kor ayaad u yar qaadanaysaa kadibna meeshan anchor tag ay ku qoran tahay ama anchorkaas ayaa waxa ka dhigaysaa 0 sidoo kale kan ka soo horjeeda asaga ayagana 0 ayaad ka dhigaysaa sidoo kale size-ka ayaad wax ka dhigaysaa meeshan ayaad ku dhufanaysaa waxaa leedahay width and height sliders ayaa leedahay width and height sliders markaad dooratid halkan waxaa u jeedaa widthka oo balaca ah iyo height-ki oo dhererka muuqaalka ah muuqaalkaaga balaciisa iyo dhererkiisa inta uu yahay ayaad gelinaysaa haddii aadan garanaynin muuqaalkaaga balaciisa iyo dhererkiisa waxaad tagaysaa file kadibna marka export gareyn rabtid ayaad arki kartaa halkan marka aad imaadid meeshan outputkaaga muuqaalka widthkiisa iyo balaciisa ayaad u jeedaa waa 1920 iyo 1080 1920 iyo 1080 halkan ka laaba marka effect controlskaaga ku laaba waa 1920 iyo 1080 kadibna waxaad tagaysaa gridkaaga halkaana waxaad ku qoraysaa 1920 iyo 1080 halkaasna waxa u jeedaa inuu borderka uu sameysmay laakiin borderka balaciisa wuu yar yahay balaciisa waa weynayn kartaa 20 ka dhig halkaasna waa u jeedaa muuqaalkanaga wuu maqan yahay hadda wax madow ayaa ku muuqdo si muuqaalkaaga u soo celisid meeshan blending mode ay saaranta ay ku qoran tahay ayaa tagaysaa normal ayaana taabanaysaa waayahay muuqaalkaaga borderkaaga colorkiisa waa bedeli kartaa hadda waa cadaan si fiican looguma jeedo laakiin waxaan ka dhigaynaa color kale waayo muuqaalkaaga borderkiisa saan ayuu u egyahay colorka waa ka dhex dooran kartaa muuqaalkaaga oo fanaanadaada colorka ay u eg tahay ayaad ka dhigi kartaa si aad si fiican ugu aragtid oo ku weyneyn karaa halkaas ayaadna muuqaalkaaga aad border ugu sameyn kartaa waxaan filayaa inaad muuqaalka ka heshay like saar muuqaalka si dad badan uu u gaaro sidoo kale wixii fikri fariin aad noo haysidna commentiga noogu reeb intaan ku kulmayna muuqaalka xiga waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo